marka ma ii xirmaysaa niyadaas haddaad suxuurato suxuurtu niye ma ah laakiin niyadii bay ku tusaysaa maxaad u suxuuranaysa inaad soonsooma xilligaa intaad soo kacdo inaad wax cuncunto macaadii ku ahaan jirta xilligan maada soo kici jirin waxna maada cuni jirin waxaad u soo kacdood xilligan wax u cuncunayso waxbaa qalbigaaga ku jiro ku soo kiciyey ood rabtaa inaad samayso soo maa intaa waay suxuurtu marka waxay ku tusaysaa inaad niyeysan tahay laakiin iyada lafahanteedu niye maaha niyadii bay daliil u tahay macnaha in qalbigaaga ku jirto inaad soomi rabto intaana waa ku filanta wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh su-aalahan dhowr su-aaloo isku nooc ah qaar ba waxay leeyihiin jimaaca mid baa wuxuu leeyahay anoo 14 jir ah baan bil ramadaan baan jimaac sameeyey marka malahna hadda waa nin weyn marka wuxuu leeyahay ma qadaa liga rabaa xukunkayga muxuu noqon mar haddii aan 14 jir ahaa su-aasha kalena waxay leedahay haddii qofka xaaskiisa u tataabto asagoona jimaac samayn laakiin ay shahwada ka imaato asagana ma jimaac baa loo xisaabi mise maxaa loo xukunkiisu muxuu noqonay isla midaas oo mid u eegna waxay leedahay online isla xaaskiisa waa ka maqan marka wuxuu leeyahay haddii aan ama waxyaabahan la iska arka aan ka arko islaantii saas shahwada ii soo dhaafto maxaa liigu xukumi midda hore oo ah 14 jir anigoo ah oo sooman baan galmooday jawaabtu waxa weeye qaangaadh miyaad ahayd mise maadan ahayn 14 jir qaangaadhaa jira Soomaalidu malaha waxay moodaan 15 jir inuu qaangaadho adoo 13 sano jira haddii aad biyo keento soo qaangaadh ma tid hadda dhalinyaraba jirta 12 qaangaadha gabdhaha iska badaayay waagi hore waa la gaajeysnaa hadda aad wax loo cunay waxyaalo la barariyay baa la cunay marka isbedel badan baa jira marka 14 jir haddaad qaangaadh ku ahayd kafaaradii baa kugu waajibaysa soonkaaguna waa jabay haddaadan qaangaadh ahayn ood markaasi aadan qaangaadhin soonkaaga aad soontayna wuxuu ahaa sunnu ahaa waajibba kuguma ahayn haddii aad khalad gashayna wax bini aadam leeyahay mooye wax kugu laazimaya ma jiro oo ilmaha uun ka celin iyo tacsiir iyo wax saas mooye waxba kama laazimayaan kafaara iyo wax kuma laazimaan maadaama uusan wali ruuxu qaangaadhin laana qaangaadhka ayaa qalinku ku bilowdaa sooma rufica alqalamu can 3 maadaama aadan qaangaadh haddaadan qaangaadh ahayn waay haddaad qaangaadhayna xukunkeeda hore soo sheegay masalada kale xigtay ruuxu hadduu xaaskiisa taataabto ama dhunkado baashaaliyo sidaas biyo kaga yimaadaan soonkii ma ka jabayaa culimada qaar baa qaba saas daraaddeed waxay leeyihiin haddii taataabashadaada iyo dhunkashadaada aad ka baqayso inay biyo keeni doonto ha u dhowaanin qaarna waxay leeyihiin maadaama taataabashadiiba la ogolaaday wixii ka dhalan lahaana waa la ogolyahay oo waa kuwa ku doodahaya maba ku jabayo soonku sida ibn xasmi iyo culimo kale almuhim waxa weeyaan hadiiba aad ka baqayso inay biyo ka yimaadaan ha taataabanin hana dhunkan hana u dhawaan laana wax weeyaan markay ugu yartahay soonkaaga waxa galaya hadal iyo shaki baa galaya marka ka fogow qodobka xigay ninka haweentiisa kala xiriiray waxyaabahan la iska arko oo ka maqan oo la sheekaystay oo sida biyuhu kaga yimaadeen wuxuu la mid yahay kii taataabtay oo kale laakiin wuxuu kaga duwan yahay culimada qaar qaba taataabashada biyaha ku yimaada inay jabinayaan baa waxaynan qabin fiirada biyaha ku yimaada inayna jabinaynin ay qabaan yani way kala qaadayaan fiirada waxay leeyihiin ibn aadamku iyo taabashadu way kala xoog badan tahay taabashadu way ka xoog badan tahay fiirada marka fiirada way ka fududahay bay leeyihiin almuhim hadduusan u qastin uusan muxuu ahay qasad u samaynin oo isagoo iskala sheekaysanaya uun muxuu ahay ay biyihii yimaadeen taasoo kaleeto marka waxay leeyihiin fuqahadu in badan oo ka mida soonku ma jabayo
saasay qabaan waana mas'ala khilaafiya khilaafaa ku jira wallahu aclam jazaak allah khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay dadka qaba cudurrada dhimirka oo marna isbedbedela oo daawooyinka qaata ma soonkooda ka waran haddii habeenkii miyirkiisa uu joogo ruuxu oo habeenkii uu soo niyoodo oo markuu niyoonayay uu qalb miyirkiisa joogay iyo dhimirkiisu joogay uusan maqnayn soonkii waa u guntamaya maalintii hadduu marna suuxayo oo miyirkiisu tegayo marna soo miiraabayo soonku ma jabayo hadduusan la siinin wax soonka jabiya haddaan la siinin ama uusan qaadan isticmaalin soonku kama jabayo haddiise laakiin habeenkii oo dhan miyirkiisu maqnaa soon uma xidhmin haddii maalintoo dhan miyirkiisu maqnaa uusan soo miiraabinna soon ma jiro habeenkii hadday u guntamay oo isagoo miyirkiisu joogo soonkii soo xidhay maalintiina marna uu miyir beelaya marna uu miyirkiisu soo noqonayay soonkiisu markaa waa u jirayaa haddii kaleeto oo intaas uusan ahayn soonku markaa ma jirayo laanna wax weeyaan waxaa loo baahan yahay marka niyada la guntayo inuu ruuxu joogo qalbigiisu inuu joogo laanna qalbigii niyoon lahaaba hadduu maqan yahay dareenkiisa iyo garashadiisu niya asixi mayso niyadii haddaysan asixinna soon ma jiro maalintoo dhan sidoo kale hadduu miyirkiisu maqnaa dee maba soomanayn wahaakada sidaasay u kala qaadqadaan culimmadu wallahu aclam sheekh su-aashan kale waxay leedahay dad waxaan arkay uu leeyahay sigaarka iska caba oo aaminsan sigaarka inuusan cunto ahaynoo soonkana uu jebinaynin ka horaas sigaarku soonkana waa jebinayaa dembi iyo macsiyo kalena waa la dheeriya oo waa xaaraamnimadiisii buu haddana soonka ku jebinaya ma jiri jirin waagii hore fuqahadii hore laakiin intuu soo baxay culimmadii joogtay baa ka hadashay marka waxay leeyihiin way qabaan culimmadu inuu sigaarku soonka jebinayo isla markaana xaaraamnimo kale u dheerto oo dembi weyn waa isticmaalkiisu sababto waxa weye shareecadu shaygu waa xalaal iyo waa xaaraan inta badan hadduusan mansuus ahayn waxaa lagu miisaamaa dhibkiisa iyo dheeftiisa haddii dhibkiisu badan yahay ruuxa diintiisa dhibayo caqligiisa dhibayo caafimaadkiisa dhibayo marka waa xaaraan dhibaatadiisu badanta nafci yarba ha ku jira hadduu rabo ilan khamradaba saasaa ilah yidhi khamrada iyo khamaarka yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa iimun kabiirun wamanaaficu linnaas alla wuxuu yidhi khamrada iyo khamaarka manaafacaad baa ku jira laakiin dembigaa ka weyn maadaama dhibkoodu weyn yahay manaafacaadkan yarkee ku jiraayey macno ma samaynayo dhibkaa weyn baa marka loo xarimayaa marka sigaarka sidiisana waa xaaraam soonkana waa jebinaya jazaak allahu khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay taraawiix iyo salaatu leyl labadaba ma isla tukan karaa maxay kale yihiin horta isku mid salaadii leylka ahayd ee xilliyada kale salaatu leylka ahaan jirtay unbaa ramadaan markuu soo galay taraawiix isu bedeshay taraawiixduna macnaheedu waxa weeyaan waa salaadan laysla tukanayo ee 4 ragcadood marka la tukadaba la nasanayo laakiin waa salaadii habeenkii la tukan lahaa waa ma kala jirto wax la yiraahdo ramadaanka taraawiix iyo salaatu leyl iyo witr kala baxsan ma jiro salaadii witrkiina waa ragcadaha ugu dambeeyay salaada ama saddex noqdeen ama hal laga dhigo witrkii halkaas uu galay salaadii habeenkii la tukan lahaana waa tan la tukanayo waa kaliya waxa uun isbedelay gooni baad u tukan jirtay bilaha kale laakiin ramadaan waa la isla tukaday jamaaca laga dhigo waa la wada tukaday laakiin waa salaadii habeenkii waa salaatu leyl waa saas weeyaan wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh su-aashan dib nagu celisay bisha hal qof aragtidiisa ma lagu soomi karaa bisha hal ruux aragtidiisa ma lagu soomi karaa jawaabtu waa haa cala saxiix haddii ruuxaasi ruux aamina uu yahay oo caadil oo lagu kalsoon yahay aragtidiisa waa lagu soomayaa waxaa ku tusaya xadiidka nabiga sal alla alay wasallam cabdullaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay taraa'a annaasu alhilaal wakhtigii nebiga ayay dadkii bishii raaraadiyeen
nin walba inuu arku isku dayay markaasaa nebiga waxaan u sheegay inaan anugu arkay haddana cabdullaahi bni cumar nebigu waa ku soomay dadkana wuxuu amray inay ku soomaan marka halka ruux hadduu caadil yahay haa waa lagu soomi waana lagu afuri cala saxiix saas daraaddeed baa alimaamu nawowi calayh raxmatullah majmuuciisa madhabka shaaficiyada markuu keenay oo laba nin shardi ka dhigaya wuxuu yidhi sida daliil ahaan xooga badani wax weeyaan hal ruux oo caadil ah aragtidiisa soonku waa ku soo geli kara waa lagu soomi karaa xadiiska cabdullahi bni cumar buuna u cuskaday wallahu aclam sheekh jazaaka allahu khayr su-aashan kale waxay leedahay daawada lagu cadaydo colgate-ka ama macjuunta marmarka qaarkoodana laga yaaba qofka hadduu carabka oo kale inay macaankeeda uu gaaro dhuuntiisa ma lagu cadeeyan karaa maalmaha ramadaanka daawada neefta qofka afku iskaga buufiyo dadka neefta qabana iyadana ma jibinaysa soonka midda neefta waan ka jawaabay waxay ku jirtaa horey baan u sheegay inaysan soonka waxba yeelaynin tan macjuunta ama golgate-ka lagu cadaydo kambaniyada kala duwan sameeyaan culimmada sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimmada qaar ka mida way ka dayrinayaan sababta waxay leeyihiin marka ruuxu ku cadayanayo waxay leedahay kulayl bay leedahay macaanna way leedahay dhadhan bay leedahay dhadhankaasi marka inuu gudaha u galo oo uu dhaafo carabka iyo afka dhaafo bay marar badan dhici karta min baabi taxadar ahaan marka in laga kaaftoomo lagu kaaftoomo cadayga caadiga ah haddaan laga kaaftoomi karin laga maarmaan yahayna in aad iyo aad laysaga ilaaliyo inaysan hoos kuu gelin oo maalan markaad cadayaysoo kaleeto dhuunta iyo agagaarkeeda inaad ka fogayso saysan macaanku kuugu sibqanin ila markaa soonku waa jabaya waa khatar waa nacam jazaaka allahu khayr sheekh su-aashan kale waxay leedahay anoo cuntadii gacanta kula jiro haddii liigu aadaamo ma inta gacanta aan ku haysto un baan dhammaystirtaa mise saxankao dhan xadiis baa ku soo arooray masaladaas asalka horta waxa weeyaan haddiiba aadaanku dhaco cuntadu aadaankay ku egtahay saasaa asal ah laakiin xadiidkaas ku soo arooray cinda abi daawuud wakayrihi ayaa xaalad khaasa tilmaamaya walow culimmada qaarkood muran ay gelinayaan ma sugan yahay mise ma sugna xadiidku wuxuu leeyahay idaa samica axadukum annidaa midkiin hadduu aadaanka maqlo waana aadaanka salaada fajarka ah waalinaa'u fii yadihi isaga oo weelku gacantiisa ku jiro falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu weelka yuusan dhigin ilaa uu xaajadiisa iyo dantiisa ka guto xaajadiisa ka dhammaysto marka lama dhihin weelka waxa ku jira oo dhan dhammaysana laguma dhihin inta gacantaada ku jirtana lama dhihin laakiin waxaa lagu yidhi xaajadaada weelka ka gudo xaajadaada maxaa gudi kara ma hal cantuuga ama laba cantuuga adaa garanaya laakiin xadiisku saasuu ku soo arooray xadiis kaloo xoojinaysana runtii waa jirtaa cumar baa nabiga la suxuurtay sal alla alay waslam sida xadiid xasana ku timi markaasaa wuxuu ku yidhi isagoo cabaya weelka gacanta ku haya yaa aadaankii dhacay wuxuu yidhi rasuulka ilaahi miyaan iska dhigaa mise waan cabbaa cab buu ku yidhi marka aahaar kale oo saxaabadii ka sugan oo xoojinaysana way jirtaa oo iyagoo aadaankii maqlaya inay cabbeen oy cuneen ah iyaduna way jirtaa aahaar badan oo saxaabada ka sugan marka laakiin sida taxadirku ku jira waxa weeyaan in aad isku daydo inaadan aadaanka cuntadaada ayna soo gaadhin tan waxa weeye xaalad naadir oo kugu dhacday tan laga hadlayo waa xaalad khaas مثلا hurdaa kula tagtay si baad u daahday muxuu ahaa inaad caadaysatana ma xaaladaasoo kale markay kugu dhacdo ayaa marka xalka sida nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam jazakallahu khair su'aalaha badin sheekh mana dhamaanay qaybaha kale su'aalaha insha Allah bariigo aan ka jawaabay sheekh ka jawaabaya marka su'aasha u dambaysa sheekh wuxuu leeyahay cuntada la bixiyo oo fidyada ah haddaan kariyo oo dad aan ku afuriyo iyadoo karsan ma iga ansaxaysaa cuntada fidyada ah haddaad dad ku afuriso ma ka ansaxaysaa jawaabtu wax weeye
dadka aad ku afurisay hadday masaakiin yihiin ilaan laba arrimood baa kala duwan sideedaba afurintu iyo ajirka lagu sheegay masaakiinta khaas kuma ah ruuxii ruux sooman afuriya ajirkiisoo kaluu leeyahay ruuxa aad afurinayso inuu miskiin yahay laazim ah xataa taajiriinta afur samayso oo ay agtaada ku afuraan ruux sooman soomada afurin saas waaye ama fidiyada dadka soomi waayay raashinka ay bixinayaan masaakiin baa iska leh dadka aad marka ku afurinayso hadday masaakiin yihiin sax fidiyadaadii way kaa guday waa inayna dad oo haysto oo aan masaakiin ahayn ayna soo gelin sida haddaad ku bixiso afur ku bixiso ama raashin bisiloo kale aad siiso laa ba'sa insha allahu tacaala waa gudayaa ama waa gudmayaa wallahu aclam su-aal markii la xidhay su-aalihiibuu dhinac ka soo tuuray su-aal markaa iyada ku xidhay waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab qisadii waxay ku timid boqoradii muxuu ahaayey ree yamaneed iyo nebi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu nebi sulaymaan yidhi yaa ii keenaya carshigeeda ayaa mid jinka ka mid ciidamadiisa jin baa ka mid ahay ayaa wuxuu yidhi anigaa keenaya carshigeeda yaman baa laga soo qaadaya shaamna waa la keenaya baytulmaqdis anaa keenaya intaad meeshaad fadhido shaqada intaadan ka bixin ood fadhidaan keeni buuhi mid kalea hadlayoo wuxuu yidhi waa kan hadda laga hadlaaye mid cilmulkitaab agtiisa uu yahay baa wuxuu yidhi ishaada bilig tidhi intaysan soo noqonin yaaban carshiga yamanka keeni buui wuu keenay markiiba waa wax hadda adduunka aan ka suuroobi karin waay soo ma adduunka hadda teknolojiyadu gaadhay horumarkuu gaadhay shay culus oo hadda yaalla yaman yaalla kawsoo yaman iska badaaba gaarisa yaalla ya ilbiriqsi halkan ma lagu soo dhigi kara ya waxaad garanaysaan marka adduunkani meel uusan weli gaadhin buu waa gaadhay nebi sulaymaan boqortooyadiisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam saasay ahayd leanna waxa weye waxaa u shaqayn jiray makhluuqaad aadamaha ka awood badan ka xoog badan jinka iyo dabaylaha iyo waxaana u shaqayn jiray marka qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab yaa laga wadaa allahu aclam cilmiga agtiisa ahaana muxuu ahaa allahu aclam intaas okay sooma khalaas laanna waxa weye cilmiga agtiisa muxuu ahaa markaan ka jawaabayno waa inaan aayad qur-aana kaga jawaabno ama xadiid nebi kaga jawaabno mana hayno soo ma wixii aan nebiguna ka hadlin sal alla alay wasalam allana ka hadlin dhacdo horoo dhacdayna ah annaga qaab kaloon ku ogaan karna ma jirto waajibkanagu muxuu yahay marka allahu aclam wey jawaabteeda soo ma waalraasikhuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bihi kullu min cindi rabbina waxyaabaha qaarkood in laga gaabsadaa cilmigeeda ah amaa in la yidhaahdo ismul acdam buu yaqaanay oo carshiga ku keenay waa nooc iska tafsiira waay nas ma aha wadaadada qaarkood inayba halkaa ka bixiyaan waxa la yidhahdo cilmi laduni oo dariiqooyinka qaarkood ku kalax tageen sidii qisadii nebi muuse dhex martay khadir oo khadir wuxuu yaqaanay cilmi laduni la yidhaahdo awliyadu ay taqaano laakiin rusushu aynan aqoonin baabkaas waa baab zandaqa wey waa baab diin la-aan ah cilmi rusushii ayna aqoonin bay awliya loo furay oo awliya taqaanaa oo laduni baa la dhaha ya waa baab kufri waay waa baabka gaalnimada laga galo ka mid waa halis waana baab dad fara badan ay ku halaagsameen cilmi laduni la yidhahdaa jira oon kitaabta ilaahay ku imaanin oon towreed ku imaanin oon ku imaanin injiil oon qur-aanka ku imaanin oo aan rusushii marayn ya
oo shotkaad ah toos shotkaad wadaadka weligaa intuu ordo toos uun carshiga ka soo daalacanayo kufri waay gaalnimo waay laanna dariiqa cilmi lagu ogaada aadamuhu ku ogaan karaan cilmi ilaahay ka yimid waa dariiqa rususha waay soo ma dariiqa rususha kutubta waay dariiqa wixii ka duwan oo cilmi oo la sheegto cilmi jira maaha marka masaa'ishaasoo kale allahu aclam baa ku filan sheekh qof baa wuxuu leeyahay dad fara badan baan guriga ku afriyaa laakiin tobanka dambe ramadaan waxaan